Bismillah, alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hello, everyone, and welcome to the Automatic American English College. My name is Teacher Ahmed, and welcome to the intermediate lesson today. Kusoo dhawaada, maanta waxaan qaadanaynaa cashar ka mid ah casharaanta intermediate-ka, gaar ahaan cashar aan ku qaadan doono dhawaaqa, pronunciation, waliba linking sounds. Marka kelmadaha amba jumladda la xiriirsiinayo, sidee loogu dhawaaqa ereyada, sidii isku badbedelayaan dhawaaqa waliba. Marka maanta waxaan qaadanaynaa 3 rules. We will examine and study 3 rules in regards to pronunciation. Okay? Marka isla yara eegna cashirka. Intaana cashirka bilaabin, waxaan doonaya idin sheego qofkii u baahan in laga caawiyo Englishka, haddaad garanaysid qof u baahan amba haddaad ugu baahan tahay, waxaa jira fasalo cusub oo online ah, arday badan baa online ku dhigata. Marka haddii aad u baahan tahay classyo online ah, insha Allah nala soo xiriir. Sidoo kale waxaa jira haddii aad joogtid goobta magaalada Hargeysa, waxaa jira qayb offline ah aad ku dhigan kartid sidoo kale. Marka nambaradaas ayaad nagala soo xiriiri kartaa on the WhatsApp, and welcome, and we are ready to help you insha Allah. Okay, toos cashirka u bilaabno. Rule number 1. Marka shardiga koowaad marka lagu dhawaaqayo ereyada waxa weeyaan xagga marka aragtiin rule number 1 C plus V. Waa maxay C plus V? C plus V waxa weeyaan consonant plus vowel. Markuu xarafka ugu dambeeya kelmaddu uu yahay amba consonant, ka ku xigana kelmadda ku xigana ka bilaabmayo vowel. Marka consonant iyo vowel waa shaqal iyo shabane. Markuu kelmad ku dhammaanayo, kelmadda waxaa eegaysaa xarafka ugu dambeeya markuu yahay consonant amba vowel, ka ku xigana uu yahay aqsigiisa. Markaas rule baa jira, waxaa jira shardi, rule number 1. Okay? Waxa weeyaan waa laisku xiriirsiinaya, linking sound baa la yidhaahdaa. Markaan isla eegno, for example, tusaalahan ku fahmi karnaa. Tusaalaha xaggan waxaa aragtaa an apple, laba kelmadood, an apple waa hal tufaax, soo maaha? Sidoo kale tusaale kale aragtaa turn off waxa weeyaan baktiya amba demi. Turn waa leexo, iyo off waa demi oo kale, laakiin turn off waa demi, bakti weeyaan marka lasku geeyo labadaas. Marka waxaa arkaysaa n waa consonant, a na waa vowel. Kelmaddan n waxaa u dambeeya consonant, kelmadda ku xigtana apple waxaa ugu horeeya vowel. Marka midna waxa weeyaan shaqal baa u dambeeya, midna shabane, sooma buu ka bilaabma. Marka waxaa loo baahan lasku xiriirsiiyo C consonant plus vowel. An eegno. Marka waxaa odhanaysaa an apple. Na'da intaa dambe iyo a'daa hore ayaa isku xiriirsiinaysa. Waxaa odhanaysaa an apple. Badana marka la dhegaysanayo Englishka, marka video daawanaysid amba warka dhegaysanaysid, si degdegay u hadlaan. Ardayda qaar waxay ii sheegaan macallin, marka daawanayo videoska amba movieska ma fahmiyo, si degdegay u hadlayaan. Adigu marka hadlaysid waan ku fahmaya macallin. Wax kasta oo afkaaga ka soo baxaya, I understand every single word coming out of your mouth, but for some reason when I watch a video or a movie, I don't really understand what they're saying. Marka sababta waxa weeyaan linking sounds bay sameynayaan, way isku xiriirsiinayaan. Marka waa inaad la sii qabsatid, okay? Okay, an apple. Waxaa odhanaysaa an apple. Isku xiriirsii, an apple. Iminka waxaan baranaynaa waa tajwiidkii Englishka. So luuqad walba waxay leedahay rules iyo shardi iyo shuruudo, soo maha? Okay, kan labaad turn off. Laba kelmadood oo kala duwan oo gaara ayaa lasku geeyay. Marka that's why markay hadlayaan native English speakersku ay dedejiyaan oo boobsiyaan luuqadooda, because kelmadihiiba isku xiriirsiiyaanba. Okay? Marka waxaa la rabaa inaad la sii qabsatid oo u fiirsatid oo markaad maqashid markiiba garatid, waa kala saari kartaa. Cashirka ku xiga insha Allah waxaan samayn doonaa mid dictation, marka ereyaan yeerin doona. Marka idinkuna waxaad samaynaysiin waa qori doontiin amba barnaamijka marka kusoo biirtid saasoo kale waan samayn karnaa. Okay, aan isla eegno, let's practice. Xaggan waxaa ku qoran a lot of work. 3 sentence baa aragtaa. As soon as possible, tell us all about it. A lot of work waxa weeyaan shaqo fara badan. A lot waa wax badan, workna waa shaqo. A lot of work. Laakiin waxaan ognahay sidaa dadku markay ku hadlayaan sentenceska, markay ku dhawaaqayaan sidaa uguma dhawaaqaan.
midh uguma dhawaaqaan way isku xiriirsiyaan marka waxay odhanayaan an eegno xagga isku xiriirsiyan waxaa la odhanayaa a lot of work a lot of work marka consonantkii waa ka vowelkiina waa ka vowelsku waa imisa waa a e I o u soma marka waa soo barateen shaqal iyo shabane marka a lot of work tiidan dambe iyo owdan baa isku xiriirsiinaysa a lot of a lot of a lot of work inkastoo maraykanka d baan u bedelnaa marmar marka kaana ka warhay waxaa odhanaysa marka a lot of work a lot of work today I'm very busy I'm sorry I can't stay I have a lot of work shaqo badan baa ii yaala shaqo badan baa ii taala I have a lot of work a lot of work na odhan karta a lot of work marka kelmaddii bay labadan eri bay isku xiriirsiyaanba kanan eegno as soon as possible sida ugu dhaqso badan oo macquula sida ugu dhaqso badan waxa ay sameen can you please fill out the paperwork as soon as possible laakiin lama odhanaya as soon as possible qofna kuma sugayo waqtigaasoo dhan waa ina isku xiriirsiisid linking sound marka xaggan waxaa arkaysaa consonant n sidoo kale waxaa xagga ku qoran s a vowel marka labadaasaa isku xiriirsiinta waxaa odhanaysaa as soon as as soon as as soon as possible as soon as possible I want to see you as soon as possible as soon as as soon as as soon as as soon as possible marka waad arki kartaa yani maaha wax aad u sii ma garanaysaa dhib haddaanad baran laakiin waxay kaa caawinaysaa inaad fahantid markiiba okay kanan eegno markii hore wuxuu ahaa tell us all about it tell us waxa weeyaan noo tell waa sheeg tell us waxa weeyaan noo sheeg tell us all about it waxa weeyaan waxaba nooga sheeg about it all about it waxa weeyaan waxa ku saabsan oo dhan marka tell us all about it waxa laga wadaa noo sheeg ba waxaba noo sheeg maxaa dhacay wixii warkoo dhan noo sheeg waxa ku saabsan oo dhan noo sheeg marka waxa ugu dhawaaqaysaa estaa iyo aydaas isku xiriirsiinaysaa eltaas iyo ayda iyo tda iyo ida maadaama uu yahay consonant vowel consonant vowel consonant vowel waxaa odhanaysaa tell us all about it tell us all about it weliba maraykanka tda d baan ku bedelnaa marka waxaa odhanaysaa tell us all tell us all tell us all waa isku xidhaysaa tell us all tell us all tell us all about tell us all about it tell us all about it I'm sorry we don't know the information can you tell us all about it haddaa maraykanka degantayna waxaa odhanaysaa I'm sorry we don't have a lot of information about that can you tell us all about it can you tell us all about it sure I'll tell you all about it don't worry I'll tell you all about it anaa kuu haka warwarin anaa kuu sheegay waxba I'll tell you all about it go ahead tell us all about it isku day noo sheeg waxaba nooga sheeg wax nooga sheeg okay okay number 4 is the boss in the office bossku ama managerku xafiiska muu ku jiraa muu joogaa I'm afraid he's out waan ka xumahay wuu maqan yahay waan ka xumahay wuu maqan yahay I'm afraid waxa weeyaan afraid asal ahaan waa cabsida waan ka baqanaya laakiin I'm afraid waxa laga wadaa I'm sorry waan ka xumahay ba xagan laga wada ujeedada waan ka xumahay wuu maqan yahay nasiib daro the fish is excellent kalluunka wuu fiican yahay waa heer sare excellent waa top aad buu fiican yahay markaas sentenceska sida loogu dhawaaqa aan eegno waxaa odhanaysaa is the boss esta waa consonant idaas waa vowel is the boss in is the boss in is the boss in the office is the boss in marka esta iyo idaas isku qabanaysaa isku dhejinaysaa is the boss in is the boss in the office is the boss in the office yeah he's in the office no he's not in the office I'm afraid ma'da iyo emtaas iyo adaas isku xiriirsiinaysaa waa arki kartiin sama soo yaro dhaweeyo I'm afraid he's out he's esta iyo odaas isku xiriirsiinaysaa consonant vowel I'm afraid he's out zau I'm afraid he's out I'm afraid he's out where's the bus I'm afraid he's out I'm afraid he's out oh waxaan ka baqanaya waxaan ka xumahay wuu maqan yahay I'm afraid he's out wuu baxay the fish is excellent waxay noqonaysaa hta iyo idaas isku dhejinaysaa the fishes isku dheji estaa dambe iyo idaa hore isku dhejinaysaa the fish is excellent the fish is excellent the fish is excellent how does the fish taste today mashallah tamam the fish is excellent I tell you what give 5 stars to the chef the fish is excellent the fish is excellent
marka waa arki kartaa wuxuu ahaa the fish is excellent imise xarfood buu ahaa imise kelmadood buu ahaa afartii waa lasku xiriirsiinaya the fish is excellent how is the fish today gentlemen the fish is excellent the fish is excellent the fish is excellent kalluunku aad buu fiicnaa okay waayahay xaggan waxaan arki kartaa we're going to put it off we you are marka lasku geeyo waa were anagu going waan tegaya weeyaan laakiin xaggan waxaa laga wadaa going iyo to marka lasku xidho waxa weeyaan mustaqbal waxaasan samayn doonaa we're going to marka maxaan samayn doonaa inagu waxaan samayn doonaa inagu put it off put it off waxa weeyaan dub baan u dhiginaa put waa dhig put it off like marka lasku geeyo waa phrasal verb waxa weeyaan waan dub baa loo dhigaya waxaas dub u dhig maanta lama haleelayo dub u dhig we're going to put it off marka lasku xiriirsiinayana aan isla eegno wakaas we're going to put it off lama odhanayo we are going to put it off yani senteniska aad buu dheeraya qofna kuma sugiyo inta hadlisidba waa la baxaya waxaa la odhanaya why is he so slow marka waa isku xiriirsiinaysa waxaa odhanaysa we're going to weliba cashar kalaan ku qaadanayna ka pageka ku xiriirsano insha allah videoga like gare pagekana follow gare sida u heshid cashar baan soo dhigi doonaa oo haddii aad barnaamijka kusoo biirtidna waad baran doontaa going to haddii jeer waa lasoo gaabiya gana buu noqonaya marka we're gonna put it off marka tiidan dambe iyo idan baa isku xiriirsiinaysa haddaa maraykanka joogto american accent isticmaalisidna tiida d u bedelun put it off haddii kale waxaa odhanaysaa put it off eeg carabkayga put it off wixiiba waa isku xiriirsiinaysaa we're going to put it off laakiin maraykanka saa uma hadlo waxaa odhanaa we're gonna put it off are you guys doing the celebration on Friday no we're gonna put it off waa maxay we're gonna put it off dub baan u dhiginaa insha allah xafladdii ma jimcaha la qabanaya insha allah may we're gonna put it off why are you gonna put it off because we're not ready that's the reason we're gonna put it off dub baan u dhiginaa we're gonna inagu waxaan samayn doonaa put it off dub baan u dhiginaa we're gonna put it off we are going to put it off okay kanan eegno John won an award ninka John la yidhaahdo wuxuu ku guulaystay abaalmarin xabad abaalmarina John marka entan dambe wata n vowel baa ku xiga a n kale oo consonant vowel marka consonant vowel wow marka maxay noqonaysaa an eegno John won xaga ka oran lahayd John won an award waxaa odhanaysaa John won an award John won an award then slow motion ku hadlo John won an award maaragta sida laisku xiriirsiinayo John won an award what did John win mashallah John won an award when did John win an award John won an award yesterday he recited he got the best Quran recitation in the country mashallah John won an award what did they give him well they gave him some money and a laptop and they gave him 50 kilograms in gold wow mashallah what an award John won an award waayahay maxaa ku xiga are we going to leave at 8 inagu ma waa su'aal samaha inagu ma we're going to waa mustaqbal ma marka maxaan samayn doonaa we're going to leave inagu ma bixi doonaa ma tegi doonaa at 8 sideedda markii gaadho qof baa la weydiinaya markii sideedda gaadho maan baxina maan tegina marka are we going to leave at 8 xaggan la fiirsada waxaan ka wadaa t waa consonant na waa vowel marka maxay noqonaysaa an eegno waxaa odhanaysaa are we going to leave at 8 are we going to xaggan maxaa dhacay xaggan waa vowel iyo vowel marka maxaan ku xiriirsiiyey well kani waa silent laguma dhawaaqayo idaas waxaa lagu dhawaaqayaa v leave lama odhanayo leave waxaa la odhanaya leave maadaama dhawaaq ahaan baa la cabiraya maaha xarafka ku qoran spelling ahaan waa dhawaaqana consonant buu ku dambeeyaa leave va buu ku dambeeyaa leave v waa consonant soma ana waa vowel shaqal iyo shabane leave marka waa isku xiriirsiinaysaa vdan iyo adan idaasna ka bood leave
leave at 8 leave at 8 laakiin badana maraykan maxaan idhi d baa ka dhigisiin marka are we gonna leave at 8 going year 2 no cashar kala insha Allah ku qaadanayna going year 2 waxaa loo soo gaabinaya gonna are we gonna leave at 8 are we gonna leave at 8 yeah inshallah we're gonna leave at 8 pack your stuff waxaaga diyaari adiguna diyaar garow be ready we're gonna leave at 8 waxaan bixi doonaa 8 inshallah 2 saacan baxina are we gonna leave at 8 yeah we're gonna leave at 8 we're gonna leave at 8 let's go yalla we don't have much time we gotta leave at 8 oh are we gonna leave at 8 marka ma bixi doonaa 8 are we gonna leave at 8 waa oran kartaa are we going to leave at 8 are we going to leave at 8 leave at 8 leave at 8 maaragta way isku xiriirsiinaysaa are we gonna leave at 8 okay ka ugu dambeeya both of us went out labadaynuba both waa labadaynuba waan baxnay went out waan baxnay marka xagga may maxaan isku xiriirsiinaa H your O consonant vowel F your U consonant vowel T your O consonant vowel marka xoranaysaa both of us both of us went out at 8 waliba tida amba waa ka tegi kartaa amba waa ku dhawaaqi kartaa both of us went out both of us went out labadayna waan baxnay waan tagnay maraykanka laakiin tida marmar waa laga tagaa waxaa la odhanayaa amba d baa lagu bedelaa labadaa haddii jeer waa laga tagaa amba d baa lagu bedelaa so waxaa odhanaysaa both of us went out where did you guys go last night xagee qabateen xali both of us went out xali waan baxnay labadayna waan baxnay both of us went out where did you go we went to the market both of us went out okay marka that's the first rule shardiga koowaad waxa weeyaan hadduu kalmad u dambeeyo consonant ka ku xigana vowel isku xidhisi isku dhaji okay marmarka qaarkood waxaa jira wax la yidhaahdo silent e okay silent e iyo weak h maxaa laga wadaa silent e iyo weak h kalmadaha qaarkood waxaa u dambeeya e laakiin laguma dhawaaqo kaa waxaa la odhanayaa silent e sida kalmadan like it your weak h waa daciif h marka laguma dhawaaqaya kaana marmar like em marka tusaalaan eegno I don't really like it anigu aad iyo aad uma jecli I don't really like it do you like the new iPhone 15 wallahi I don't really like it I think it's too big I don't really like it anigu aad iyo aad uma sii jecli runtii xaqiiqatan runtii uma sii jecli marka maxaa dhacay xagga e-daasaa laga tagay okay marka k-daas consonant iyo i-daas ku xiriirsiinaysaa kaa waxaa lahahdaa silent e wuu badan yahay e-daa in badan waa laga tagaa iyo weak h na waa h daciifa kaana badanna waa laga tagaa like em I don't really like em ninka maaragta I don't really like em aad iyo aad ma sii jeclay qofkaas I don't really like em xagga ka odhan lahayd I don't really like him hada lagu dhawaaqayo waa laga tagaa hadaas waxaa la odhanayaa I don't really like em I don't really like him. Do you really like him? I don't really like him. waayahay haddaba kaasi waa rule 1 maxaan nidhi aan soo muraajaceeyo waxaan nidhi hadduu English ahaan kalmad ay u dambeyso a word ending in a consonant haddii kalmad u dambeyso shaqal oo ka kalena shabana ka bilaamiyo waa isku xiriirsiinaysaa labadaas link those two sounds together waliba waa sound waa dhawaaqa hadduu dhawaaqa consonant u dambeeyo iyo dhawaaq vowel kalmadda ku xigta ee ka bilaamiso connect those link isku xiriirsiin okay waayahay kaasi waa rule number 1 marka iminka rule number 1 baan qaadanay okay rule number 2 waxaan baran doonaa laba vowel markay isku xigaan okay marka ka videogan ku xiga kan daawo insha Allah rule number 2 laba vowel markay isku xigaan and rule number 3 na waxa weeyaan laba consonant markay isku xigaan maxaa la sameynayaa okay marka insha Allah thank you guys insha Allah videogan if you like this video like sad wixii aad ka faa'iiday insha Allah wad comment ka soo galin kartaa wixii kugu adagna also comment ka soo dhigi kartaa insha Allah okay marka dib ugu noqo sentences-yada ku soo dhawaaq isku day inaad ku dhawaaqtid practice wuxuu keenayaa inuu ku fudaado marka waxaan qaadanaynaa waxa haray laba video kuwa kalena daawo rule number 2 iyo rule number 3 dhawaaqa pronunciation haddii aad u baahantiin lagaa sii caawiyana amba qof u baahan Englishka ku soo xiri collegekeena automatic American English College meel kaleba ha tegin insha Allah thank you guys